qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ayaa bilaabay fikrado cusub oo ganacsi ah oo ay kaga faa'iideysanayaan isticmaalka lafaha xoolaha. Telefishinka Universal ayaa waraysi la yeeshay qaar ka mid ah dhalinyaradaas oo ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya. Warbixinta ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyaheenna Maxamed Ibrahim Bulbul. lafahan dhexdaadsan qashinkan waa haraadiga xoolaha aan cadkooda iyo waxtarkooda intifaacsanay kadib aan iska soo fogeynay sida gudaafad oo kale balse daawade ma og tahay in isla iyaga qaar naga mid ah ay si maalinlaha u isticmaasho amaba ay jeebka ku qaataan bal hadda eeg jeebkaaga waa suuragal inaad ka mid tahay dadka si maalinlaha u isticmaala lafahan hadda ma doonaysaa inaad ogaato nakeen habnololeedka shaqo ee bini'aadanku ku raadsado nolol way fara badan yihiin hase ahaatee fikirka iyo hirgelinta himilooyinka waa kuwa u baahan maskax fiyow oo badqabta kani waa Cabdikariin Abuukar waxa uu aroor kasta u soo kalahaa sidii uu lafaha xoolaha iyo geesahooda ee lagu tuuro goobaha qashinka ugu bedeli lahaa wax soo saar faa'iido leh sida tusbax qurux badan iyo waxyaabo kale oo ay dumarku ku xaragoodaan tan waa lafta geelka oo laga saaray dhuuxa kuwan waa lugaha looda mijimaha looda kan waa geeskii looda dhamaantood waxaan ka soo saarnaa waxyaabo markaas waxtar leh sida hadda tusbaxoo kale kuulaha markaas hablaha ay markaas isticmaalaan waxa kaloo laga soo saaraa ii sheeg waxyaabaha markaas loo isticmaalo jewelry-ga oo qalinka iyo dahab lagu xiraayo oo sida fiska markaas laga keeno China iyo wadamadaas kore oo anaga markaas alifno oo geeskan iyo laftaas laga sameeyo tusbaxa uu Cabdikariin ka sameeyo lafaha geela looda geesaha iyo xoolaha kale farsamo ahaan waxa ay soo maraan heerar kala duwan qiimo ahaan waa ay ka qaalisan yihiin kuwa laga keeno dibadda oo caaga ka samaysan waana hal abuur ay naadir tahay inaad ku aragto Muqdisho iyo guud ahaanba dalka marka hore waa tanaa laftii geelka aan caadiga u ka seenay oo meeshii koow markaas ay taagneed oo processkeedii markaas weli ma bilaabanin haddana waa kana waxaa laga dhigay sida markaas qaabkan aa u jeedin oo qaabkana loo jarjaray qaabkan haddana waxay ugu sii dhammaanee waa kana qaybtaan haddana imaanee waa u jeedaa kan intoo ka imaaday intoo aaday isku mid ma ahan haddana waa la jarjaraa oo kan qurubyadaan yaryaraa loo jaraa saana loo yareynaa markii saan loo yareeyo hadda waa kana inta wax markaas duleel ah ma lahan qaabkana haddana laga dhigaa waa la duleelinaa sida markaas hawshiisa ay usii socoto tusbixi markii saan laga dhigo haddana qaybtaan oo imaanaa qaybtan waa kana wax markaas kaliya makiinadii laga soo dejiyey wax kaarta iyo markaas dhalaalis ah ma ka muuqdo oo ma dhalaalsano haddana waa kana wuu dhalaalsan yahay kan wax farqi weyn u dhaxeeyo kan markaan garaafi dhaawac inuu ku yaalay oo maleysa haddana waa kana waa luushteysan yahay oo tusbixi wuxuu diyaar u yahay in markaas la tixi karo oo tusbax la isticmaali karo oo noqdo marka ugu dambeysana waa kana oo tusbixi waa diyaarsan yahay dhammaan lafti markaas marka hore inta ka imaada haddana waxay taagan tahay inta heerka ugu dambeeya oo tusbixi isticmaalka ahaa waxaa jira waxyaabo badan ay dadku qashin ahaan isaga soo fogeeyaan laakiin laga soo saari karo waxyaabo anfacaya dadka iyo deegaankaba iyadoo loo adeegsanayo farsamooyin gaar ah sida Cabdikariin oo kale waxauna shaqadan ku maareeyaa nolosha qoyska uu ka soo jeedo dhammaan tusbaxdan aad aragtaan waxaa lagu farsameeyay dalka waana hal abuurka wiil dhalinyaro ah dhammaantood waxaa laga sameeyay xoolaha iyo geesahooda tusaale ahaan midkan waxaa laga sameeyay lafaha geela waana la rinjiyay midkan waxaa laga sameeyay maroodiga sidoo kale kana waxaa laga sameeyay geesaha looda bal qiyaas haddii aan wax kasta uga fikirno dhinaca wanaagsan sida dhaqaalaha waddankeena uu kobci karo Maxamed Ibrahim Bulbul Universal TV Muqdisho.